sharaf bay ii tahay inaynu halkan maanta isugu nimaadno ilaahay isugu keenay dhagax dhigan xafladan loo samaynayo magaaladeennii Burco ICU-ga ama qaybta daryeelka caafimaadka dadka aad xaaladooda u liidato anigoo ku hadlaya markaa xubnaha Hani Higsi ururka Hani Higsi asaaskiisii wuxuu ahaa bilowgii 2021 markaa ururku muddo gaaban oo uu jiray waxyaabo aad u fara badan oo dalka iyo dadkaba muhiim u ah ayuu qabtay haddaan in yar ka taataabto waxa ogeydeen waqtigii COVID-19kii wuxuu u qabtay markaa cusbitaalka hadday tahay sanitizerskii wixii gacmaha kuwii afka lagu xidhanayay dhow aanu hirgelinay sanad ka hor 2 qol oo meedka lagu meydho qolkii hore lagu kordhiyay kuwaasna waxyaabaha ururku qabtay ayay ka mid yihiin kan aynu hadda joognaana waa mashruucii ugu ballaadhnaa ee uu markaa uu ururku fuliyo ilaahay baa mahad iska leh dhismaha ICU-ga ee cusbitaalka Burco uu yeelan doono dhismahaas iyo adeegaas oo hore cusbitaalka uga maqnaa ayaa kaalintaas waxa maanta buuxiyay inay dhismaha fuliyaan oo hirgeliyaan ururka mutadawiciinta Hani Higsi dhagax dhiga labada qole loogu talagalay emergency-ga iyo dadka aad u dhiban xaalanu damacsanahay ilaahay idimkiisa sidaa iyo si ka sii wanaagsan inaanu dadkayaga iyo gobolkayaga wax ugu qabano waxaanu codsanaynaa ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer meel kasta ay joogaan inay wax nagala qabtaan oo ay dadkooda sida aanu anakuba uga damqadaan waxaan kaloo halkan hambaliyo u marinayaa hawada ururka Hani Higsi caalamka meel ay joogaan fariintaan u dirayo ah waa guulaysateen barihiinina waa la gurtay tacabkiinina hadii Ilaahay ka dhigo waa loo aayay waana la intifaacsaday isbitaalkan waa markii afraad baan filayaa wax laga qabto gobolkan Togdheer baahidiisu way badan tahay hadaynu nahay reer Togdheerna inteena badan inaga madaahna waxaanaynu wax ku qaban karnaa oo aynu gobolkeena hoos ugu eegi karnaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan baa la yiri marka aynu soo wada jeesano qof waliba xoog iyo xoolo iyo xeelad iyo xilkasnimo ku shaqeeyo wixii aynu qabsano oo aynu ilaashano iyo wixii aynu qaban karno oo aynaan hagranin oo aynu dhiirigelinteeda yeelano kulay codku waa sadaqad maalkuna waa sadaqad ficilkuna waa sadaqad dalada Hani Higsi ay maanta insha Allah taala ay ku guuleysteen inay dhagax dhigaan qaybtii daryeelka xaaladaha culus ururka Hani Higsi oo ah dad isu taagay in waxa weeye gobolkooda hadba meesha dayacan inay wax ku darsadaan waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ay ku daro in Allah subhanahu wa ta'ala muraadadoodan macsiyo lahayn gacanta midig Ilaahay inuu ka galiyo waa wax tar weyn oo u soo hoyday gobolada bari oo dhan in maanta aynu ka dhagax dhigayno qaybta daryeelka caafimaadka waxa weeye culus ama ICU-ga cusbitaalkii guud ee magaalada Burco oo runtii Ilaahay uu sabab uga soo dhigay inay hirgeliyaan barnaamijkaas ururka Hani Higsi oo aan isleeyahay dawladnimadeeni wax weyn buu ku soo kordhiyay barnaamijka maanta ay ururkaasi uu gobolka Togdheer uu kaga qayb qaatay marka koowaad iyo marar badan ba waxaynu u ducaynaynaa ururka Hani Higsi meel kasto ay kala joogaan haddaad imka isu timaadeen oo inta xooga marisan meel badan imka la tilmaamay aad sameyseen halka ka sii wada waan idin amaanaya qaybtaas oo ahayd runtii qayb aad iyo aad loogu baahnaa oo ka dhinayd adeegyada caafimaad ee cusbitaalka ama guud ahaan magaalada runtii arintaas waa arin weyn waxa iyaguna amaan mudan iyo in loo mahad celiyo ururka Hani Higsi Allah barakeeyo gaaliya islaamna Allah u sakhiro meesha joogan ba Ilaahay dalad macaan Allah u dhigo anigu waxaan ka wakiilahay amaan gudoomiyaheeda ah shirkadda dhisaysa halkan ee Ciga Construction Company insha Allah waxaan ballan qaadaynaa inaan dhisno dhisme tayo leh oo fiican agaasimaha cusbitaalka guud ee Burco Dr. Maxamed Cabdi Faarax iyo xubno kale iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxa kamid ahaa sida tan furitaanka ama dhagax dhiga qaybta cusub ee cusbitaalka Burco lagu soo kordhinayo qaybta ICU-ga ama intensive care unit waxaan mahad celinayaa ururka Hani Higsi oo waxa weeyaan hawshan runtii codsi aan u gudbinay anagu oo ka yimid xaggayga cusbitaal ahaan naga aqbalay in badanna falanqeeyay ugu dambeyntiina aqbalay in mashruucaasi ay fulin doonaan ku guuleystay in uu hirgalo oo maanta mashruuca contractgiisa ay bixiyaan runtii waan u mahad celinayaa Ilaahay waxaan ka rajaynayaa qof kasta oo ka qayb qaatay oo xubnaha urur kamid ah inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxa uu la baxay ururkaas oo urur tilmaaman oo waxqabadkiisa runtii cusbitaalka ka muuqdo ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye
waxaanay u mahadnaqeen ururka haniya higsi marlabaadka waxaan u mahad celinayaa ururka haniya higsi oo runtii markii labaad iyo markii saddexaad iyo markii afraad ba ayna ahayn ay wax qabad runtii dhaba oo la taaban karo ay ka sameeyeen gobolka Togdheer xaruntiisa Burco iyo qaybaha kala duwan ee gobolka gaar ahaan cusbitaalka Burco tiraba waa 4 jeer ee wax qabad ballaaran oo la taaban karo runtii ay ka sameeyeen waxaan leenahay haniya higsi hablaha iyo inamada ururka ku jira ee qurba joog ilaahay miisaanka xasanaadka idin saaro dowrkiinni iyo waajibkiinni baad gudateen haniya higsi wuxuu ka mid yahay ururada runtii ugu firfircoon ee ugu wax qabadka badan ee runtii danta guud ka shaqeeya waxa kaliya ka horeeya baan filayaa dahabshiil group ayaa ka horeysa haniya higsi wax qabadkiisa markhaanti baanu ka nahay runtii sharaf bay tahay maanta inaan ka qayb galo xafladan dhagax dhiga ee ururka han iyo higsi ay kaga qayb qaadanayaan inay ku dhisaan ee qaybtii ICU-ga ee cusbitaalka guud magaalada Burco runtii qaybta ICU-gu sidoo agaasimuhu bay noo sheegay waxay ahayd qayb aad loogu baahan yahay wasaaradahan waa ka sii hawlgalay xagga qalabka intiisii badnayd waa taallaa inta ka dhimanna waan soo buuxinaynaa insha Allah oo waan keenaynaa waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo oo aan ku amaano ururka han iyo higsi oo run markii koowaad aanay ahayn ee ay ka qayb qaataan dhinaca caafimaadka gaar ahaan cusbitaalkan oo laynoo sheegay inay xilliyo badan oo xilligii koonfurka ka mid yahay oo qaybta meydku ay ka mid tahay oo qaybo kale ay ka mid yihiin inay hore uga qayb qaadateen waxaan leeyahay tan iyo kuwii horeba miisaanka xasanaadka Allah idinku daro oo alla jisaayigeeda haydin siiyo midda kale ee aan doonayo inaan hoosta ka xariiqaa waxa weeye wax lagu bahoobo waxa ugu wanaagsan oo ugu karaamo badan oo ugu sharaf badan in wax qabadka ummadda iyo meelaha khayrku ku jira lagu bahoobo ee ururkana waxay u muuqataa inuu u bahoobay inuu qaybta wanaagsan uu ku bahoobo oo uu wax waa maxamed ibraahim british TV-ga qaranka Somaliland Burco